وهجاك daawadayaal weli barnaamijkeeni garaad ayaa la socotaan qaybtan ugu dambeysay ee barnaamijkeenana waxaan ku soo qaadan doonaa warbixin aan idinka diyaarinay ama xubin aan idinka diyaarinay 10 jaamacadood ee ugu wanaagsan adduunka iyada oo laga eegayo dhinacyo kala gedisan daawasho habboon qiimeyntan lagu sameeyay 10 jaamacadood ee ugu horeeya dunida ayaa laga eegay dhinaca ardayda dhigata jaamacadahaasi adeegyada waxbarasho ee ay bixiyaan iyo sidoo kale boqolleyda ama tirada ardayda ajnabiga ah ee jaamacadahaasi wax ka barta waxa weli safka hore ku jira dalalka Mareykanka iyo Britain oo dunida ugu horeeya liiska darajada ee jaamacadaha dunida ugu wanaagsan sanadkan aynu ku jirno sida uu qoray wargeyska Times oo ka soo baxa dalka Ingiriiska halkaasi oo labadan dal ay haystaan 20 jaamacadood ee ugu horeeya marka laga reebo mid ka mid ah jaamacadahaasi oo ah tan ku jirta kaalinta tobnaad oo ka soo jeeda dalka Switzerland majalada Newsweek ayaa sheegtay in wargeyska Times uu kala sooc ku sameeyay 1,000 jaamacadood oo dunida ka jira iyadoo oo la tixgelinayo tayada barashada cilmiga iyo sidoo kale cilmi baarista gudbinta aqoonta iyo aragtida guud waxaa 10 jaamacadood ee ugu wanaagsan labka ama raggu ay yihiin kuwa ugu tirada badan dhinaca ardayda marka laga reebo jaamacadda University of Pennsylvania oo ah 10 ugu horeeya ee jaamacadaha iyadoo oo dhadiga ama dumarku ay yihiin ardayda ugu tirada badan ee jaamacadaasi wax ka barta halka macadka California of Technology heerka dhadigu waxoogaa ka yar yahay 3 meelood oo meel waxaana la sheegay qiimeyntan qaar ka mid ah dalalka Aasiya sida China iyo Singapore kuwaas oo weli si deeqsinimo leh kharash ugu bixinaya jaamacadahooda intii lagu guda jiray sanadihii u dambeeyay waxaana taasi u muuqataa in la gurto midhaheedii waxaana 3 jaamacadood oo ka soo jeeda qaaradda Aasiya ay ka mid noqdeen 30 jaamacadood ee ugu horeeya 10kaasi jaamacadood haddaba waa kuwan 10 jaamacadood ee ugu wanaagsan dhinaca waxbarashada ee sanadkan 2019 waxa kaalinta tobnaad ku jirta jaamacadda Swiss University of Earth oo ka soo jeeda sida magaceeda ka muuqata dalka Switzerland kaalinta sagaalaad waxa ku jirta University of Chicago waa jaamacad ku taala sida magaceeda ka muuqata Chicago kaalinta sideedaad Imperial College of London oo ka soo jeeda dalka Ingiriiska kaalinta toddobaad Princeton University oo ka soo jeeda dalka Mareykanka kaalinta lixaad Harvard University oo caan ka ah dunida kana soo jeeda dalka Mareykanka kaalinta shanaad California Institute of Technology oo ka soo jeeda dalka Mareykanka Massachusetts Institute of Technology ayaa isaguna kaalinta afraad ku jira halka kaalinta saddexaadna uu ku jirto jaamacadda Stanford University kaalinta labaad ee 10 jaamacadood waxa ku jirta University of Cambridge oo ka soo jeeda dalka Ingiriiska halka ay kaalinta koowaad ay gashay jaamacadda Oxford oo ka mid ah jaamacadaha dunida ugu qadiimsan isla markaasina ugu magac dheer waxa muuqata in labada jaamacadood ee ugu wanaagsan 10kaasi jaamacadood ay ka soo jeedaan dalka Ingiriiska